بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قدوميها قلها وكلها قدومي بحجانها حلوانها قلها وكلها شغالها هي الصحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن قدومية مركو هراء يضع عن احترامي شرقدون كيو مدنيا شباب وحجعلها هي سدح قضب أفر قضب من كه الله. qodobka koowaad waxa weeye marka hore waan ka xunahay xariga xildhibaanka oo runtii aynu jecel lahay qarankan iyo dalkan xeerarkiisa iyo nidaamkiisa in la dhowro. marka labaad xeer ilaalinta qaranka oo xeelaliyaha guud hogaaminayo eedeyntii ay xildhibaanka ku soo eedeeyeen runtii yeedhamadii golaha wakiiladu ay u yeedheen iyaga laftoodu inay golaha hor yimaadaan wixii su'aalaaya wixii cadaymaa waajibaadka qaran ee ka saaran in golahana iska wareystaan ay ahayd. iyagana waxaan soo jeedinayaa xeeraaleyntu runtii inay golaha hor timaado yeedhmadii golaha wakiilada ee golaha looga yeedhay inay ixtiraamaan wixii ay cadaymaa u hayaanna su'aalaha iyo wixii laga qabo iyo cadaymo ay hayaan intaba halkan runtii waajibaadka golahan ka saaran iyaguna ay waajibkooda ka gutaan oo ay hor yimaadaan bay ahayd. qodobka saddexaad xildhibaanadii ugu horreeyey ee runtii aada moodo in caadifadda aragtida meel ka sarreysa howlaha iminka socda iyo shaqooyinka socda ay doonayaan inay ka tallaabsadaan ee madaxweynaha aada moodo inay runtii dhawaaqooda iyo ra'yigooda iyo hadalkoodu iyo mabda-oodu halkii shaqada oo ahayd ay ka tallaabsanayaan. iyagana waxaan leenahay dee arrimaha in la sii murgiyo ma aha. arrintaasina waa mid aanaan runtii waxa weeye aan iminka hadda iyo xaaladda joogto sii murginayse arrinta xildhibaankana aydan waxba ka tarayn. marka xaaladdu halkii taalla haddii laga dhaqaajiyo iyada lafteedu shaqooyinka yaalla arrinta xeeraalinta inoo taalla arrimahan isu soo dhaweynta wixii sharciga raaca la raacayo qaabka looga wada hadlayo haddii qaab caadifada looga hadlo annaguna waxaan leenahay madaxweynuhu geed cidlo ka baxay maahe runtii ha gaabsadaan xildhibaanada afka xisbi nagula hadlaya. af xisbi baad ku hadasheen annaguna af xisbi baan nagula hadlanaa. haddii intaa markaa laga baaqsan waayo inaynu runtii si saraaxad leh u wada hadallo annaga ku hadlana annaga wixii dheeraada ka hadlana haddii runtii si qaawan loo wada hadlo si qaawan baa loo wada hadli. marka arrintu halkay taalla in laga dhaqaajiyo ma aha. xadhigga xildhibaankana waanu ka xunnahay. soo jeedinteeduna waxay tahay arrintaa runtii arrinta xeeraalintu in xeeraalintuna golaha hor timaado shirgudoonkuna wixii kale dheeraada ee runtii arrintaasiya shaqada waxay ka qabteenna iyaga fursad la siiyo. wixii sharciga aynu u marno ayaanu leenahay sharciyadda hala maro sharciyadda hala ixtiraamo cid kastoo sharciyadda runtii ka tallaabsatayna halkeeda haynu u marno. laakiin haddii la idhaahdo runtii arrinaan meesha ool ha lagu degdego dee waxay keenaysaa markaa in golaha laftiisa ku kala qaybsamo. anu intaas ka baxay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.